wafti ka socday golaha guurtida Soomaaliland iyo sidoo kale cuqaaliyo wax garad loo xil saaray shaqadii dhawaan ka dhacday deegaanka Dharkeengeeyo ee gobolka Sool maalmihii u dambeysay ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa kulamo kala duwan la qaadanayay dhinacyadii ay dhirtu ku dhexmartay deegaanka Dharkeengeeyo waxaana saaka kulan la qaateen barasaabka gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyagoo ka wada hadlay sidii ay guurtida hawsha u gali lahayd xaaladana loogu soo dabaali lahaa nabadgelyo shirkan oo ay babada u xidhnaayeen ayaa markii uu soo gabagabay waxa warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine waxa uu sheegay in ay nabadeyntu marayso meel fiican gobolka kula kulanay ergadii ka timid Jamhuuriyadda Soomaaliland caruurta caasimadda Soomaaliland Hargeysa oo isugu jira salaadiin iyo golaha guurtida xubno xildhibaano golaha guurtida oo ah qolyaha nabadda u qaabilsan marka la eego hay'adaha dastuuriga ee dowladda guddidaas runtii ku timi ergadaas ku timi dalabkii gobol ahaan aan jeedinay ahaa in naloo soo diro odayadii farsamayaqaanka ahaa dhinaca nabadda waayeelkii naloo soo diro guddidaasi waxay nala joogaan iminka maalinta saddexaad khamiistii bay yimaadeen jimcihii iska nasteen xalay waxay la kulmeen beesha baarsame saakan annaga ayaa kulanay beesha qaadadna degdeg baa la kulmi doonaa haddii ay waxaasoo kulamadaasina dhammaantood waxay ahaayeen sida loo xidhi lahaa nabadda sida loo xidhi lahaa ergadan waxay u timi inay dhexdhexaadiso oo ay isu keento labadii ardaa ee maalintii dhaweyd ku dagaalamay Dharkeengeeyo ku dagaalamay inay isu keento oo ay arrintooda dhameeyaan marka annagu waxaanu siinay warbixin halkii ay wax noo taagnaayeen oo ahayd intaad ogtihiin idinkuba oo ahayd in aanu ciidamo dhex dhignay goobii dagaal ka socday aanu caasimadda xoojinay ciidamo amni oo dheeraad ah aanu ku darnay khaasatan ciidamada tababaranay SBU-da aanu kusoo kordhinay in mataqaanaa odayadii aanu la kulanay labada dhinac odayadoodiiba inaanu aragnay inaanu meel wax isla dhignay runtii nabadda maanta jirtaa kuma timaado oo keliya ciidanka waxay ku timi labada waayeel ee labada dhinac oo runtii nagala shaqaynayay intii hawsha aanu wadnayba ayay ku timi marka runtii annagu warbixintaas aanu siinay waxaanu in odayaashuna nala dabreen oo ay nala hayaan nabaddana waanu sheegnay in loo baahan yahay in sidoo ugu dhaqsaha badan loo xabad joojin loogu wada dhawaaqo oo loo soo dhammaystiro colaadda meesha ka jirta oo ciidan aan qorisita oo magaalada aan u ogol lahayn inuu magaalada Laascaanood joogaana ma jirto saad ogtiin waa laga guraa qofkii lagu arko xitaa hadduu ciidan yahay maanta uma ogolin aanu heeganahayn gudoomiye waxa uu sidoo kale ka hadlay nin hubeysan oo laba nin ku dilay deegaanka Yeele oo ka tirsan gobolka Sool oo uu sheegay in hawsha ay ka howlgaleen ka maamulahaan isagoo gudoomiye u mahad celiyay odayaashii wax garadka deegaanka Yeele oo uu sheegay in ay nabadgelyada ka shaqeeyeen waxaan doonayaa odogtiin daraatoole magaalada Yeele doornimadii nin dambiila oo gacan ku dhiigla waa dad masaajid ka soo baxaya nin masaajid ka soo baxaya isku dayay inuu dilo ninkii iyo nin kale oo masaajid ku jiray ay ku dhinteen arrintaasina runtii arrin xun oo aan maanta loo fadhiyin baa sababtoo ah maanta dadku isu soo guureen Yeela biyaha laga wada cabayay halkaasaa la wada joogay dadka isu soo guurtada ah iyo dadka deegaanka joogay maanta in xabad la dhex dhigo wax xun bay ahayd u malayn ma inay tala reereedahayd nin qariban iyo qolo kula socotayna un baa arrintaas ahayd arrintaa runtii qoladii ay dhimashadu ku dhacday ee deegaanka ahaa maaragtay reer Wari ama reer Yeele runtii si fiican bay yeeleen waayeel bay direen nabadda way qabteen gacantay ku dhigeen dhinacii kale iyana wax ka dhinteen reer Caynaba isna ninka masaajid ku jiro ka dhintay inay way yimaadeen waa la saaf gartay gudoomiyaha ayaa beeniyay warar sheegay in ninka halkaasi fal ka geystay uu ka tirsanaa ciidanka militariga Soomaaliland arrintaa ma jirtaan ninka anagu nooguma ciidankana looguma sheegin ninkaasi nin wuxuu ahaa aartaga wax 12 sano ka hor dhacay Soomaaliland dadkeedu dhan ku wada dhacay nin u soo aartagay buu ahaa Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Laascaanood